jiilalka soo koraya caalamkan ku noolnaha ayaa iyagu waqti galiyay sida ay dunida ula wadaagi lahaayeen waxyaabo ugub ah oon horey loo arag. Kobaca garaadka dhalinyarada ayaa keenay iftiin cusub oo ah in dhalinta Soomaaliyeed ee waqtigan ay hindisaan fikrada shaqaynaya kuwa aan horey loogu dhiran jirin ama aan ka jirin dalka. Cabdullaahi Maxamed Cali Nageeye waxa uu maskaxdiisa ka toobay inuu sameeyo baaskiil badeed kaasoo ku socon kara biyaha dushooda isagoon hoos u kiidin badda. Marxalado kala duwan ayuu soo maray isku dayga hal abuurkani. xilli waxa uu ku bilowday qiyaali balse ugu dambeyn waa mid shaqeeyay kaasoo ka dhashay waxyaabo kala duwan oo la isugu geeyay hal meel. wallahi waxay ka kooban yihiin waa caagadahan waxa way caagadihii ii sheeg oo caagadihii biyaha caafiga la oran jiray caagadaha biyaha caafiga la yiraahdo waaye waa midba meelan ka soo qaada ayagoo gorof ah qaar waa dulduleeleen qaar si kale ay ahaayeen wixii dhameed waxaan sameeyay inaan intaan isku keeno aan fiber glass mariyo waa 5 iyo 5 ka kooban yihiin mid kasta marka meel uu ka dulduleelay wixii dhameed intaas fiber glass iyo wixii intaan soo gadgataan meel la tagay aan kaligay ina isku ka kaba sidoo jeedaan waxa socdo hawshan ah baaskiil sameynta baaskiilkan uu ka duwan yahay baaskiilada kale oo waxa loo isticmaalayaa waa baaskiil badeed. Cabdullaahi Maxamed Cali waxa uu sameeyaa oo ku guda jira shaqadii oo ugu diyaar lahaa baaskiilka inuu geeyo badda si aragtidiisa u noqoto mid gadanta bulshada Soomaaliyeed ay soo dhaweyso. waxa gabagabo marayo diyaar gareyntii lagu waday baaskiilkan waxaana inta badan u noqon doona baaskiilkan wax inta badan la hadal hayo maadaama waqti badan iyo xilliyo kala duwan uu sameeyay isku keenka qalabku ka kooban yahay baaskiilkan. Tilaabooyinka ugubkii ma helaan dhiirigelin joogto ah iyadoo ay macquul tahay in qof kasta oo leh hibooyin qarsoon uusan soo shaabici karin isagoo ka baqaya in lagu tilmaamo qof aysan fadhin maskaxdiisu. dadka waxaan kala kulmay caqabado badan dadka 90% waxay ku leeyihiin niyahow nin waalana tahay waxa waaye waxaan isbada kugu xaraqin waxa waaye dadka qaar waxay ku leeyihiin ninkan waa nin lacag hayn waaye dadka qaar waxay ku leeyihiin ninkan ma ujeedin waxa waaye isheeg nin يعني دور انت بقول كيف بس 9 ادي waxa waa igu diidan yihiin waxay leeyihiin waxaan niyahow waxa waa ha ku dhiman ama barnaamij ninkii maanta fikrad soo saaray waxa lagu leeyahay wariyaa haye ma xarabta inaan wax soo saartaa warayjo waxa waa wadanku waa iska xun yahay ma wax soo saarka ay waxa hadii lagu arko dashishay xataa ku waxaysanahay. xeebta liido ayaa tijaabadii ugu horeysay waxa la geeyay baaskiil badeedkan si loo ogaado mir dhalka hindisahan waqtiga soo socday waxaana dhalinyaro badan oo soo dabaal tagay xeebta isku soo gadaameen halkii baaskiil badeedku uu ku sameeyay tijaabooyinka badgalka ah iyo inta uu ku socon karo badda dhexdeeda. ma sha Allah anti waa fikrad wanaagsan oo leeyahay halkan wada biyo maskaxda soo caabada soo saarta hada kan tusaale u yahay in yani hadii la fikiro caabada soo karo waa Cabdullaahi abuur wanaagsan waay mar hadii aad tahay qof yani fikirayo oo wax saar leh bulshada يعني waa soo bandhigi karaa si hadii la aad goob joogo kale maanta ay ka qaatay in dhiirigelis Cabdullaahi doonta ujeedin waxa la sameeyay barnaamij Soomaaliyeed oo yani wax Soomaaliyeed oo iska tuuro qashin amal ah waa soo jidaan baaskiil iyo caawa kale ka sameeyay waa fikrad yani wiil Soomaali ku dhalatay qofkii bilaadana ala warkiisa loo dhistaa waa askar ma sidoo jeedaan baaskiilka oo baaskiil badeed waxa maanta ugu soo bandhigay waa gala jimcaha waxa lagu soo bandhigay xeebta Liido waxaana inta badan intaan qof ay isugu yimaadeen aragtaan cusub oo aad u soo dhaweynayaan hal abuurka muddooyinka dambe wuxuu ahaa mid soo taraya oo inta badan bulshada Soomaaliyeed ku leeyahay aqoon dhalinyarada inay keenaan hal abuur noocyo kala duwan leh waxaana haatan muuqato in bulshada aad u fahmayaan inay dalka keenaan hal abuuro aad loo soo dhaweeyay. dadka ku damaashaada xeebaha gaar ahaan kuwoodaan aad ku garanin dabaasha ma jiraan agab ku taageeraya inay biyaha kula sabeeyaan si ay uga mid noqdaan dadka kale ee hawada u qaadanaya sida degan iyagoon quusan biyaha badda. waxaan ilaahay ka rajaynaa raas casar ilaa raas kambooni xeebteena Soomaaliya waa xeeb dheer waxaan rabaa xeebahaas oo dhan hadii ilaahay inay noqdaan xeebo loo soo dalxiis tago indhaha lagu soo nuursado waxaan rabaa meel kasta in mar walba la yiraahdo xeebtii Soomaaliya waa saan xeebtii Soomaaliya حتى waxay horumar u tahay barnaamijkan ii sheeg la leeyahay waxa waaye waa mar walba waxa badeena lagu aruursanaa malayga waa burcad badeed waa burcad حتى dalxiisayaasha waxa la tusaa inay badeena nabad tahay inay sabadeena ii sheeg wax ay dhibaato ay ka jirin oo waxa rabtid inaad maanta uga soo bixi karto. baaskiil badeedkan oo ah tijaabo ka timid maskaxda wiil dhalinyaro Soomaaliyeed ah waxay keenaysaa isku dayo badan oo dhalinyaradu ku dhaqaaqaan si dabaasha badda loogu helo qalab qofka ka samata bixi kara badda ama uu ku dareemayo deganaan badda gudaheeda. Maxamed Ciise Koona, Goobjoog, Muqdisho.